مياه دقمة حسن عمر arrinkaas sax weeyaan maanta mudaaharaad waa dhacay waxaa kasii horeeyay dil ka dhacay masaajidka raxma dhexdiisa ay nin kala soo baxeen masaajidka ahaa dilkaasu nin kaligiis ma aheen dilku dadku wax la dilay 2 qof waaye wax la dhaawacayna 6 qof waaye sidaan riboortka ku haayo anu hadda magaalada waxaa la geeyay 6 qof oo dhaawac ah saalka degmada marka qofna dhaawiciisa wuu culusaa waa lasoo qaaday hadda xamar lasoo geeyay shantii meesha kusoo hartayna 2 waa iska dhaawac bukaan socda وإسكو صوب حين مركي لقى داوية وفي جاري أو داوي يرى إحنا والد جيفي سالك يا كل النادي ما كسر أي واحد عين طاسة ولا وانقرتي مركا هذا حالده إن واسيدي محاضر كي داوي عسو جاري حقين لقي وطبعا كل شيء بدكو ننا وداوي عسو حمر الله سوق هذا مركا أخن طاسنا أخن لبسون نقضي واي نمن كاسنا وحميش الجيين دولة تقدر على الكواي أخن كاسنا كهذا شيء وقت غوصنا إذا لقى روا dibkaasuna shacabku waa ku dhibsooday waa wax soo jireenna waa maanta kaligeed maahan waa ogtiin wax badan ma idinku ka maamul ahaan ma la hadasheen ciidamada nabad ilaalinta Amisom markaasi dhibaatada jirtana ma kala hadasheen muxuu yahay xalku arrinka marka jawaabteedu ku soo hortaan inta xilka la wareegay wali aan magacaabay dhacday masjidin xamaran jooga oo xilkaas xil wareejinta ay dhimantahay maamulkii iga horeeyay dhowr kale la hadlay waa la hadlay hadalku wax ma ahan hadalka heer maamul maahan heer dawli ay u baahan tahay nimankaas wax geeyay dawladda waa hadii la bedelay hadii laga soo qaaday gaboodba arrin dawladda u faalo waay dawladda shacabkeeda inay dhibka ku fiirsato maaha arrintaas maandeedkooda maahan inay shacab gumaadaan inay shakhsiyaadkaas masaajidka u galaan iska dhafe qof hayada aan hub haysin oo dhan inay u geeysan maahan wax lagu talagalana maahan waan gartay marka sidoo kale dawladdu arrintaas waxay u taalaa wasaaradda amniga iyo gaashaandhigay u taalaa inay ka hadlaan ama ay wax ka qabtaan heer gobol iyo heer degmo maahan arrinta heer dawli waa dhibka jira wax xalli karan dawladda waa waan gartay laakiin mudane gudoomiye maxaa keenay in intay baxaan masaajid ay galaan qof kala baxaan ay dilaan arrintaasi maxaa keenay anu shakhsi ahaan nuqaanka wax keeni karaa ma jiro haddii hataa cillad ku timaada ama dhib la gaarsiiya hataa ma ahan in shacabkii iyo masaajidkii iyo dadkii rayidka inay dhex galaan ay dhib u geystaan sidaaba wax keeni kara male qofka bini aadamka jirkiisa la dhibaatay xal maaha nin aan hubaysnayn ama qof aan hubaysnayn weliba hadda waxaan sheegaynaa wax masaajida loogu galay marka wax keeni karaa ma jiro arrintaas aan qabo waan gartay in marka ka maamul ahaan iyo maamulka ciidamada Amisom maxaa diiday inaad ka wada hadashaan oo ku wargelisaan in dhibaatooyinka shacabka aad sheegteen ay ku hayaan ay ka joojiyaan arrintaas markaan tagno insha Allah waana ka hadlaynaa waana ku wargeliyeynaa kamana aamuso doono kamana raalli noqon karno shacabkii aan mas'uulka ka nahay intaas loo galo midaan aqbala karna maaha insha Allah waana ka hadli doonaa markii ilaahay meesha geeyo ugu dambeyn dad waxaa jira dhibaato soo gaadho dad sheegtay ugu yaraan 6 qof dadka dhintay waa 2 qof sidaad sheegtay in dadkaasi ka maamulkiina muxuu qorshihiinu yahay wallahi dadkaas intii wax la tari karin wax loo taro waaye ka maamul ahaan wixii maaragtay markaas facilitation loo qaban karo mid waa la soo qaaday hadda dhaawiciisa culus waa ku sheegay dacmo ka geysanaya maamulka wixii kale meesha jiifada hadda ku dhaxay isbitaalka wixii dacmo laga geysan karo insha Allah waa ku geysanayna hadii la yiraahdo kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Xasan Cumar oo u warramay wariyana Cabdiraxmaan Xuseen Fure